Sheekada hooyo sabol ah oo ka mid noqotay dadkii sanadkan ku geeriyooday intii lagu guda jiray acmaasha xajka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay qabsatay hadalhaynteeda warbaahinta dalka Masar. Intaan u guda galin sheekadan waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato in aad nagu soo biirto mahadsanid. Kumanaan qof ah ayaa sanadkan ku geeriyooday magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudi Arabiya intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Waxaana loo sababeeyay geerida dadkaasi in ay qayb ka ahayd kuleylka daran ee ka jiray magaalada Makka. Dalka Masar ayaa ka mid noqday dalka dadka ugu badan ku yeeshay dadka ku geeriyooday magaalada barakeysan ee Makka ee Sacuudi Arabiya. Waxaana la sheegay in dadkaasi ay badankoodu ka soo jeedaan xaafadaha ay degaan dadka sabolka ah. Sheekada hooyo lagu magacaabo Eventia oo 70 jir ah ayaa qabsatay hadalhaynta warbaahinta dalka Masar waxayna ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday magaalada barakeysan ee Makka. Hooyadan oo ahayd hooyo haysata 5 caruur ah ayaa waxa ay nolosheedii oo dhan ku bixisay in ay aruuriso wixii qarashaad ah ee soo gala. Sidoo kale waxay iibisay dahabkeedii si ay u soo gudato waajibaadka xajka ee sanadkan. Wiilkeeda oo lagu magacaabo Zayid ayaa warbaahinta BBC u sheegay in hooyadii riyadeeda koowaad ay ahayd in mar-uun ay soo gudato waajibaadka xajka oo ay tagto magaalada barakeysan ee Makka. Eventia ayaa dalka Sacuudi Arabiya ku gashay dalku gal aan rasmi ahayn waxayna ka mid ahayd boqolaal kun oo qof oo doonayay in ay soo fushadaan waajibaadka xajka iyaga oo aan la diiwaan gelin ama si rasmi ah aan ku gelin dalka Sacuudi Arabiya. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in taasi ay tahay in carqaladeyn lagu sameeyay sharcigeeda. Waxaa la sheegaa in ay aad u adag tahay ama qarashaad badan ay ku baxdo sanad kasta in fiiso aad ka hesho Sacuudi Arabiya marka la gaaro gudashada waajibaadka xajka maadaama boqolaal kun oo qof ama malaayiin qof ay sanad kasta xajiyaan. Taasi oo dad badan oo sabol ah ku kalifta in ay si aan rasmi ahayn ku galaan dalka Sacuudi Arabiya sanad kasta marka la gaaro gudashada waajibaadka xajka. Dalka Masar oo ay ka jirto dhaqaale xumo aad u daran oo muddo dheer ka jirtay dalkaasi ayaa isna la sheegay in fiisaha sanadka marka la gaaro gudashada acmaasha xajka ay aad u adag tahay. Waxaana la sheegay in qofkii ay ku baxayso lacag dhan $6,000. Taasina ay ku adag tahay dadka sabolka ah ee ku nool dalka Masar. Safarka Eventia ayaa waxaa qabanqaabiyay muqallas waxaana uu u sheegay in $3,000 oo kaliya ay iska bixiso. Taasi beddelkeedana ay helayso adeegyo qaabaysan ama tayadoodu ay sareyso. Waxaa la sheegay in markii ay tagtay Sacuudi Arabiya oo baskii ay raacday in uu ku dajiyay meel aad uga fog buurta Carafo markii loo taagnaa gudashada waajibaadka xajka oo ku beegneed 15 Juun sanadkan 2024. Waxay ka mid ahayd boqolaal kun oo qof oo si dhuumaaleysi ah ama si aan rasmi ahayn ku galay Sacuudi Arabiya kuwaas oo basas ka soo raacay meelihii ay deganaayeen. Waxaana la sheegay in ay aad ugu fogaayeen halka lagu gudanayo waajibaadka xajka gaar ahaan buurta Carafo. Dadkii sida rasmiga ah ku galay dalka Sacuudi Arabiya ayaa la sheegay in ay heleen adeegyo tayadoodu ay sareyso sida in ay heleen teendooyin ay ku xiran yihiin qaboojiyaal ama mukeyfyo. Sidoo kalena ay heleen adeegyo caafimaad oo tayadoodu ay sareyso taas oo ay u diyaarisay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa tiro hordhac ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay dadkii geeriyooday sanadkan in ay gaarayaan 1,301 qofood. Waxaana ay sheegtay in dadkaasi ay ahaayeen dadkii ku soo galay sida aan rasmiga ahayn dalkeeda. Waxay sidoo kale intaasi ku dartay in dadkaasi ay soo lugeeyeen taasi oo keentay in ay la kulmaan kuleyl daran oo badankooda galaaftay noloshooda. Xujayada sanadkan ee booqatay magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay waajibaadkooda xajka gudanayeen iyaga oo la kulmayay kuleyl daran oo ka jiray Sacuudi Arabiya. Waxaana kuleylka dalkaasi uu gaaray 50 digrii.